السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حاس وناسن ودلنير allana uu ku arsaaqay qalbi mu'min ah khashicna ah waxay ka caado yeelatay inaysan ka tagin salaada subax sanado fara badan ilaa ciyaalnimadeedii mise caruurnimadeedii. aabeed ayaana toosin jiray si ay ula tukato hooyadeed iyo walaasheed. asaga iyo wiilkana waxay aadi jireen masaajidka habeenada ka mid ah. markii ay tukatay salaada cisho waxay aaday walaasheed oo ay isku dhawaayeen midaasoo dhashay canug si ay u soo kaalmaysay u caawiso. waxaana soo waday ninkeeda habeenbarkii ayadoo daashay. markii ay seexatay waxaa ka tagtay salaadii fajarka iyadoo ka xun. markay soo kacday ayna ogaatay in salaadii ka tagtay aad ayay u naxday wayna murugootay. qalbigeeda ayaa horay uuna xasili waayay ilaa markii dambe ay go'aansatay in maalinkaas oo dhan ay tukato istighfaartan ay badiso si qalbigeedu u xasilo. waana markii ugu horreysay ay dareento xasiloonin darro ilaa yaraanteedii. markii soo qalaysay salaadii ninkeedu wuxuu aaday shanqada wuxuuna ka tegay iyadoo wardinayso. markuu soo laabtay weli way fadhisay wayna oynaysay. wax yar ayuu seexday ninkeeda. haddana markuu soo kacay wuxuu arkay iyadoo taagan oo tukanayso. kadib ninka wuxuu aaday salaada maqrib. markii laga baxay salaada wuxuu si toos ah u aaday xaaskiisa. wuxuu arkay iyadoo ilaahay baryayso ilintuna ka socoto. madax ayuu ka dhunkaday hab ayuuna siiyey asagoo oynayo. wuxuuna ku yidhi wallaahi uma laabanayo. wuxuu ahaa ninkeeda mid doontay gabar kale iyadoon ogeen. maalinkaas ayuuna rabay inuu mehersado. markuu arkay dhibaatada haysato xaaskiisa uuna garanaynin sababta ka dambayso ayuu u maleeyey inay ogaatay arrintiisa ayna ka murugaysan tahay sababta uu la guursanayo iyadoo guurkoodu uu cusub yahay. qalbigiisa ayaa jilcay wuxuuna ugu dhaartay inuusan la guursanaynin weligeed. xaaskan wanaagsan waxay rabtay inay raali geliso rabbigeeda allana ninkeeda ayuu u qasbay. qisadan waa qiso mudan cibro qaadasho. wax kasta way ku suurtagelayaan kaliya rabbigaaga raaligeli ducadana badi. fadlan dakeesha qisadan like saar kuna sabiro subscribe janaalkeena Bishaar Action. aad ayaad u mahadsan tahay walaal.